mukhtaar roobo cali oo ku magac dheer Abu Mansuur waxa uu kamid ahaa hogaamiyaasha al-shabaab ee aadka loo yaqaan markii ugu horeysay ee dadku bartaan waxay ahayd markii ay maxaakiimta islaamiga ah qabsadeen Muqdisho iyo inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Abu Mansuur waxa uu xilligaasi noqday ku xigeenka xogayaha difaaca ee midowgii maxaakiimta waxa uu kamid ahaa waftigii maxaakiimta ee tagay Khartoum si uga qayb qaataan wada hadaladii dhexmaray dawladii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo midowgii maxaakiimta markii maxaakiimtii laga saaray Muqdisho roobo waxa uu tagay Asmara Eritrea ismaandhaaf kala dhaxeeyay hogaankii maxaakiimta ayaa ku riixay inuu ku biiro al-shabaab oo magacooda si rasmi ah u shaaciyay bartamihii 2007 roobo waxa uu noqday afayeenka al-shabaab xilkaas oo uu hayay ilaa bartamihii 2009 markii laga wareejiyay afayeenimada al-shabaab Abu Mansuur waxa la sheegaa in uu noqday ku xigeenkii Axmed Godane jagadaas oo si rasmi ah loo shaacin bishii June 2012 dawladda Mareykanka ayaa madaxa Mukhtaar Roobo dul dhigtay $5 milyan 2013 markaas oo uu aad dibadda ugu soo baxay khilaafka u dhaxeeyay hoggaanka al-shabaab Mukhtaar Roobo waxa uu ku jiray horjoogayaal sarsare oo kooxda ka tirsan si xoogan uga hor yimid qaabkii uu kooxda u hogaaminayay Axmed Godane khilaafkaasi waxa uu sababay in Godane uu ka taqaluso qaar kamid ah raggii ugu sareeyay kooxda sida Ibrahim Afgan Abdixamiid Colhaye Abu Mansuur al-Amriiki oo isagu Amerikaan ahaa iyo saraakiil kale oo Soomaaliya ajaanib isugu jiray Mukhtaar Roobo waxa uu xilligaasi goostay inuu keenta galo isagoo wata dagaalyahano isaga u daacada halkaas oo uu difaac ugu jiray muddo dhowr sano bishii June ee sanadkan ayay dawladda Mareykanku Mukhtaar Roobo ka saartay liiska dadka lacagta la dul dhigay maalmo ka hor ayay al-shabaab weerareen saldhigii Roobo ku lahaa gobolka Bakool horaantii toddobaadkan ayaa Mukhtaar Roobo la keenay magaalada Muqdisho isagoo laga soo duuliyay Xudur Bakool shalay oo ay taariikhdu ahayd 15 Agost 2017 ayuu Roobo shacabka Soomaaliyeed la wadaagay in uu al-shabaab isaga baxay 5 sano iyo 7 bilood ka hor waxa uu dawladda Soomaaliyeed uga mahad celiyay doorkii ay ku lahayd halka ay hadda wax marayaan dadka iyo dalka u adeegayay kan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa dhulka meel ka mid ah Bakool meeshaasna waa lagu weeraray taasoo la rabay in lagu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaac kan kale waxaan u mahad celinayaa dawladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan Jibriil Xasan Isxaaq oo ka tirsan saraakiisha ciidanka nabad sugidda Jubbaland ayaa aaminsan in isu soo dhiibitaanka Roobo ay al-shabaab uga dhigan tahay dhabarjab aan ka soo waaqsi lahayn waxa dhabarjab nooc ugu weyn bay ku noqonaysaa maadaama Abu Mansuur uu yahay nin saameyn kulul aftahan nin hal abuur leh maadaama uu yahay wax badan saameyn bay ku noqonaysaa shabaabna waxa suurtagal ah ama cadba in shabaab maanta aysan jirin maadaama hadii ay jirto maxaa yeelay maanta Abu Mansuur dadkii lahaa ururku kamid ah uu isaga imaaday marka qofka maanta waxa weeyaan wixii ani aan lahaadaan isaga tagay qof kale oo dib ka imaaday muxuu ka qaban karaa xildhibaan Bile Cabdulla Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaan weydiinay waxa ay ka dhigan tahay ka bixitaanka Abu Mansuur ee al-shabaab iyo waxa ay uga dhigan tahay dawladda Soomaaliya Mansuur Roobo wadaadkaasi wuxuu ka mid ahaa aas-aasayaashii al-shabaab oo ka mid ahaa dadkii Usaama u tagay ee ku soo dabartay oo ka mid ahaa shabaab dadkii aas-aasay xogaalka u ahaa oo ka mid ahaa insha Allah aniga waxaan isleeyahay soo gelitaankiisa ama soo dhiibidiisa
macno weyn baa ugu fadhidaa dawladda waayo xubin weyn oo mataqaanaa al-shabaab ka go'day weeye ama xog fara badanna waa ka baxday xoog fara badanna wuu kala tegey ciidanna wuu kala tegey maskax iyo awoodna wuu kala tegey waayo ninkii wax aas-aasay asagaa weelka guntiisa wax ku jiro dawladdana waxay ka faa'iidaysanaysaa mataqaanaa xogta uu haayay ka faa'iidaysanaysaa iyo ka soo tegiisa magac iyo ciidanba dhaawac baa u gaaraya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur waxa uu sanadkii 1960 ku dhashay degmada Bardaale ee gobolka Baay wuxuuna noqonayaa horjoogihii ugu darajada sareeyay ee ka soo baxay al-shabaab kana laabta falalka xagjirnimada Najma Ismaaciil Yusuf raadiyaha telefishinka Jubbaland magaalada Kismaayo.